assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada muuqaal cusub. caawa waxaan qaadanaynaa sida loo cadaysto ama cadayga qaabka ugu dadaali karto goor walbo. ma og tahay in qof walba afkiisa ay ku dhex nool yihiin 700 oo nooc bakteeriya ah? Difference is kind of 700 bacteria. waxa ugu fiican looga hortagi karo khatarteeda waa cadayga. faa'iidooyinka cadayga waxaa ka mid ah 5 faa'iido ayaan ku soo qeexnay in cadayga uu qofka ka dilo bakteeriyada ilkaha. 1. cadayga wuxuu ilkaha ka ilaaliyaa suuska iyo burburka. 2. cadayga wuxuu ka hortagaa wadne xanuunka qaybo ka mid ah. 3. cadayga sidoo kale jilba xanuunka ayuu ka hortagaa rheumatic fever. 4. cadayga af urka ayuu ka baabi'iyaa qofka bini'aadanka. 5. cadayga cudurka sokorta nooc ka mid ah ayuu jaanis u diidaa haddii aad cadayga badato ama aad badsato. qaabka ugu fudud ee ugu fiican in aad kaga hortagi karto waxaa ka mid ah waa in aad cadaysatid mar walbo aad cunto kadib, ama cunto aad cunto ka hor, ama markaad seexan rabtid, iyo markaad aad ka soo kacdid hurdada. Carruurta kula dadaal cadayga markay cuntada cunaan, ama ku dhiirigeli in dabeecad ay ka dhigtaan cadayga si ay ilkahooda iyo caafimaadkoodaba ay u ilaaliyaan. halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeennii cadayga ahaa ee afka iska nadiifi. wabilaahi towfiiq. is aragti dambe oo xiise leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.